idin salaami saaxiibada qiimaha badan meel kastoo dunida daafeed ka joogtaan waqti kastoo idintahay awcan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka afraamtararka ugu dambeeya intaana gudagelin barnaamijka data markii kuugu horeyso boqolinta channelka fadlan subscribe noo saaraan ilowin inaa muuqaal kale noo saarto aan ku bilaawno qodobkeena kuwa saaxiibada qiimaha badan mar kale junior NTR taageerayaashiisa aad u kaga firxisada la socotay 24 saac ka hor NTR 30 ayaa lagu dhawaaqay sidoo kale maanta waxa lagu dhawaaqay NTR 31 ama junior NTR filmkiisa 31 sidoo kale wuxuu la shaqeyn doonaa directorka awoodda badaaninka lagu magacaabo Barshan Niil ogaada saaxiibada qiimaha badan directorkan lagu magacaabo Barshan Niil waa ninka ku canbax sameynta filimka weyn lagu magacaabo KGF labadiis qaybood sida daraadeed haddana wuxuu la shaqeyn doonaa NTR ayuu kala shaqeyn doonaa filimkiisa 31 sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa shaac laga qaadamaadka sanadkan ama bartamaha sanadka dambe ee shaqada filimka NTR 31 bilaaban doonta ogaada ninkan saaxiibada qiimaha badan lagu magacaabo NTR farqiis oo buuxan sidoo kale laba project oo weyn gacanta ayuu la haystaa NTR 30 waxa uu sameyn doonaa directorka awoodda badaaninka lagu magacaabo kortaala seef haddana waxa la shaqeyn doonaa Barshan Niil NTR 31 ayuu kala shaqeyn doonaa sidoo kale waxa la xaqiijiyay labadan film inay yihiin ban India min tuuli la magaalo ayaa laga daawan doonaa maadaama hadda ninka lagu magacaabo junior NTR oo noqday saaxiibada qiimaha ban isar maadaama uu noqday labadiisa film waxa lagu dhawaaqay inay yihiin saaxiibada qiimaha ban movie waa sida daraadeed dhawaana shaqada filimka weyn lagu magacaabo NTR 30 ayaa bilaaban doonta bartamaha bisha dambe June ay bilaaban doontaa sida hadda shaac laga qaaday isla akhbaarta kale saaxiibada qiimaha badan ka cusub NTR 30 wax kale maana atrishada lagu magacaabo Deepika Padukone ayaa leeyahay filimka Atrisha kood ay ka noqon doontaa sida hadda loo saadaalina sidaan ka warqabna kortaala seef iyo sidoo kale NTR waxa ku midoobay filimkooda NTR 30 wali magac loo bixin laakiin lagu yeeray NTR 30 sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan sanadihii ugu dambeeyay waxa la raadinaa Atrisha dhankaas Bollywood ka caanka sidoo kale NTR filimkiisa 30 la sameeyay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan hore waxa loo xiriirinay Alia Bhatt inay Atrisha kood ka noqon doonto laakiin Alia gabi ahaanba way iska diiday inay junior NTR la shaqeeyso sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Sharada Kapoor ayadana dandoonaysa ay teamkan kooda laakiin hadda waxa la sheekada kusoo biishobatay gabadh lagu magacaabo Deepika Padukone ee Atrisha kood ka noqon doonta sida hadda loo doorasay sidoo kale shabakadaha maanta inta badan soo daawaceen sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan dhawaan waxa la rajayn doonaa official statement inay soo saaraan teamka iskala filimka NTR 30 sidoo kale Atrisha kood filimkan in lagu dhawaaqi doono ayaa la rajayn doonaa dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan wiilka lagu magacaabo Fikar Tagayaan wiilkan uu talaabsan sidaan ka warqabno wiilkan hadda waxa tiyaatar u saaran filimkiisa lagu magacaabo Doona kaasoo saaxiibada qiimaha badan natiijahan noqday super hit sidoo kale ganacsigiisa isla fiirin doon laakiin maanta akhbaarta ka cusub waxay tahay wiilkan saaxiibada qiimaha badan filimkiisa cusub ayaa lagu dhawaaqay sidoo kale waxa lagu dhawaaqay Sifa 21 ama Fikar Tagayaan filimkiisa 21 sidoo kale waxa lagu dhawaaqay in Atrisha kood ka noqon doonto gabadh jaliinkeeda heerka sare u yahay gabadh lagu magacaabo Saybalaafan saaxiibada qiimaha badan wiilkan bartanka wuxuu kaga jira guuleys sidoo kale hore wuxuu ugu qabsaday filimkiisa weyn oo doctor ka soo noqday Blockbuster in ka badan 100 karoorna soo xaray hadda filimkiisa lagu magacaabo Doona tiyaatar ayuu saaray in ka badan 80 karoorna uu soo xaray sida daraadeed hadda filimkiisa 21 waa lagu dhawaaqay waxa director ka noqon doona in lagu magacaabo Raj Kumar sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan filimkan shaqadiisa bartamaha sanadka ay bilaaban doontaa akhbaarta kale xiisaha la waxay tahay filimkan waxa maalgelinaya superstarka awoodda badaaninka lagu magacaabo Kamal Hassan shirkadiisa loo yaqaan Raj Kamal Films ayaa maalgelin doonta dhamaan shaqada filimkan way bilaaban doontaa sidoo kale saaxiibada qiimaha badan majaladaha inta badan maanta waxay ku darayaan filimkan magacaan waxa la rajaydo in loo bixin doono magaca ma firan magacaan ayaa kaas loo bixin doono laakiin wali si official looga bixin laakiin dhawaan shaqada filimkan waa bilaaban doontaa magaciisana waa lagu dhawaaqi doonaa sida daraadeed Fikar Tagayaan gabadh lagu magacaabo Saybalaafan saaxiibada qiimaha badan mashruucan cusub iyo ku midoobay saaxiibada qiimaha badan soo qaadana filimka lagu magacaabo Doona hogaamiye ka yahay wiilkan lagu magacaabo Fikar Tagayaan waxa isla fiirin doonaa filimkan waxa dhameesto wax loo yaqaan weegiisa kuwa sidoo kale ganacsigiisa guudna waa isla fiirin doonaa inaba caadi ma saaxiibada qiimaha badan filimkan wuxuu qaatay weeg qurux badan sidoo kale dhankaas taamilkana saaxiibada qiimaha badan oo gilgilay sida hadda shaac laga qaaday filimkan Doon wuxuu soo xaray 82 karoor ayuu soo xaray sidoo kale darajaan hadda wuxuu noqday super hit ayuu noqday ogaal saaxiibada qiimaha badan filimkan kaliya marka hore lagu iibsay lacag gaarayso 55 karoor taasoo ka dhigan filimkan qoliyac jalada qaybin macaash xadaaf ay keeneen sidoo kale waxa la ordoosaray saaxiibada qiimaha badan filimkan darajada 100 karoorna inuu gaari doono maadaama dhawaanahan taamilka wax filim soo bixi doono ogaal saaxiibada qiimaha badan filimkan ganacsiga ugu adag wuxuu ka sameeyay dhulka laga leeyahay dhankaasi Tamil Nadu sida shaac laga qaaday in ka badan 45 karoor dhulkaas ayuu ka soo xiray sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan meelaha kale oo ku wanaagsan yahay waa dhankaasi Telugu sidoo kale in ka badan 5 karoorna uu ka soo xiray sidoo kale Karnataka kale saaxiibada qiimaha badan lacag aad ayuu ka soo xiray overseas ka suuqyada caalamkana holac ayuu ka yimaadam in ka badan 30 karoor lacag ku dhawna uu ka soo xiray
sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan filimkan wadarta guud 82 kor uu soo xariyay qolyaha jaradaha qaybay saaxiibada qiimaha badan macaash xadaafan way ka heleen sidoo kale wiilkan filimkiisii doctor wuxuu noqday blockbuster sanadkii hore sidoo kale wuxuu soo xariyay in ka badan 100 kor haddana wiilkan wuxuu la imaaday filimkan doon ka soo noqday super sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan waxa la leeyahay fakartagayaan calankiisa oo babanaya sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan si xawli ah ayuu ka socdaa maadaama wiilkan saaxiibada qiimaha badan asaagiisa uu ka soo dulmaray sidoo kale markaan super saarada ay haystaan dhankaasi taamilkan wala tartami doona sida hadda loo dorosaay كان صاحب قيمها بن شبكة لو يقان بوكس اوفيس انديان أن حكتي صدع أنسلا فيرندون إن بعد ما صاحب قيمها بن فيلم كبول فولياتون بوكس اوفيس اندي وحلادا فيلم كان وجه إني سكوات أيوب بهيد دمسرم كنا قندونا مع دام اللي شلت جناحسك أسمي أو جماعة الأفر 8 قرار وحكبا عندنا جناحسك مانت أسبتها وسمين دون سيد هذا شبكة بوكس اوفيس اندي صاحب قيمها بن الشاجس فيلم كان مالنتيسا سبتدو حكين دون العقد النظيف كالعق جاريسون سيد 8 قرار يسوى حرين دون سيد هذا بوكس اوفيس اندي ودرسهم sidoo kale ninkan film kan saaxiibada qiimaha badan Volvo oo soo karar qaatay sidoo kale shirweeyooyinka loo yaqaan multibal kaskana oo ku wanaagsan sidoo kale magaalooyinka ugu waaweyn caasimadaha dalka Hindiya oo ka gadmay sida Mumbai, Delhi, Bangalore iyo sidoo kale dhankaas Jaipur iyo Lucknowna filmkan uu ka fiican ganacsiga ugu adag oo ka sameeyay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan shabakada box office indi waxay leedahay filmkan waxa qasab ah leedahay filmkan week indiga isku markuu dhameysto 4 maalmood ugu horeysa wuxuu keenay doona lacag gaarayso 30 koror ama ku dhawaad 50 koror ay soo xareen doona taasoo ka dhigan doonta filmkan inuu si dhaqso leh ku noqon doono hid dhameysan sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan wiilkan ugu magacaabo وويلكان لغو مغاعو كرتك أرينا حتى وطلابسد مادام فيلمكي صاحبada qiimaha badan si xawli ah oo ku soo sidoo kale qoysaskii sidoo kale inta badan dadka jecel fariinta loo yaqaan saaxiibada qiimaha badan filmeeyay sidoo kale fariinta shactari iyo jahwarar isku jira dadka jecelna aad u daawanayaan filimkan dhanka kale saaxiibada qiimaha badan waxa la fiirin doona shabakada box office indii xogta soo daawacdo ah 10ka film saaxiibada qiimaha badan ugu bilaawashada wanaagsan maalintooda kuwaad marka laga soo laabta dhankaasiyo corona saaxiibada qiimaha badan waa 10ka film laga leeyahay dhankaasi Bollywood sidoo kale weejiga corona marka laga soo laabtay ee ugu bilaawashada wanaagsan ay isla fiirin doonaan sidoo kale filmkan Volvo 2 kaalinta ka soo gal ogaal saaxiibada qiimaha badan kuma jiraan aflaamta laga leeyahay dhankaasi koonfurindo aflaamta kale ee leeyihiin Bollywoodka kaalinta kuwa saaxiibada qiimaha badan waxa ku jira filimka lagu magacaabo Zoria Fansho Akshay Kumar hogaamiyaha filimkan maalintiisa koowaad wuxuu keen lacag gaaray 26 kor ogaada filimkan waxa la daawaday ayadoo fasax u jir maadaama diwaaliga sanadkii hore 2021 la daawadaadkiisa kaalinta labaad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Volvo 2 sidoo kale filimkan maalintiisa koowaad wuxuu soo xiray lacag gaarayso 14 kor ogaada filimkan maalin fasaxna lama daawano kaalinta saddexaad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Bachchan Bande hogaamiyaha Akshay Kumar sidoo kale filimkan maalintiisa koowaad wuxuu keen lacag tamay laba kor sidoo kale waxa jira fasax qarn hooli ayaa jirin sidoo kale kaalinta afraad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Tariid sidoo kale filimka maalintiisa koowaad wuxuu soo xiray lacag gaarayso 12 koror iyo bar ayuu soo xiray waxa jira saaxiibada qiimaha markii filimkan la daawanayo Christmas ayaa jira sidoo kale kaalinta shanaad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Nangobaaka Tawadi Caaliya baad hogaamiyaha sidoo kale filimka maalintiisa koowaad wuxuu keen lacag gaaraysa 9.2 koror ay soo xiray kaalinta lixaad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Hero Bantitu oo Tagar Sharif hogaamiyaha sidoo kale filimkaasna fasax ay jir maadaama Ciidul Fidriga ee sanadkan la saar 6.7 koror ay soo xiray kaalinta dood waxa ku jira filimka lagu magacaabo Anthem the Final Truth hogaamiyaha ka ahayn Salman Khan Sidiis ayu sharma sidoo kale filimkan maalintiisa koowaad wuxuu keen lacag gaarayso 4.78 koror kaalinta zeed waxa ku jira filimka lagu magacaabo Tadab lagu soo caan bixinayo ahna shanta oo balwaan u yahay aabo sidoo kale filimka maalintiisa koowaad wuxuu keen lacag gaarayso 3.8 koror ay soo xiray kaalinta sagaal waxa ku jira filimka gudaan dalka Hindiya ka yaabsado filimka lagu magacaabo Kashmir Files sidoo kale filimka maalintiisa koowaad wuxuu keen lacag gaaraysa 3.36 koror kaalinta ka tabanaad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Jersey asna filimka maalintiisa koowaad wuxuu keen lacag gaarayso 3.19 koror saaxiibada qiimaha badan 10ka film ugu bilaawashada wanaagsan ee Bollywood ka sameeyay dhamaanaha sidoo kale sida koronaha lagu soo laabtay dambeyn saaxiibada qiimaha badan soo qaadana Today History man oo kale aflaamta aan kala daamaanta oo kala xalada filimka Soomaalida aad ku jecel waa filimka lagu magacaabo Zoria Vansham filimka waxa la daado 22 May 1999 hogaamiye waxa ka filimkan Amitabh Bachchan sidoo kale saaxiibada qiimaha badan gobol lagu magacaabo Sundarya ayaa hogaamiye ka sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la saaray tiyaatar gaar ah sida hadu diiwaan gashan 190 may laga daawaday waxa lagu qoras garay filimka miisaanad gaarayso 7 koror sidoo kale cumraantiisana filimkan wuxuu soo xiray lacag gaarayso 6.67 koror soo xiray natiijada filimkan wuxuu noqday flop ayuu noqday filim gool dareysan markaan fiirna filimkan waxa tikid goos oo shaleemad ka dad gaaray 5,900 aan ku celiyay 5,000
5,592,000 qof ee tigid goosoo shaleemad ka daawatay wuxuuna ka mid yahay filimkan filimada Soomaalida aad ku jecel sidoo kale filimka cala dheer dhangiisana aad loo aman sidoo kale qeyrna wala heysana classicna wallahi dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan maanta oo kale waxa la daawaday filimka lagu magacaabo Yuufa filimkan waxa la daawaday 22 May 2014 markaan fiirino hogaamiyaasha filimkan waa Ajay Devgan, Amitabh Bachchan, Rani Mukerji, Vivek Oberoi sidoo kale waxa director-ka ninka lagu magacaabo Manan Ratnam sidoo kale asaa producer-ka ah saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaray 350 shilin ayaa laga daawado waxa lagu qoray jiray filimkan miisaanad gaarayso 12 koror cumraantiisana filimkan wuxuu soo xir lacag gaarayso 14 koror sidoo kale saaxiibada qiimaha badan natiijada filimkan wuxuu noqday bilow average ayuu noqday markaan fiirino lacagta gaarayso 14 koror hadii sicirka maanta lagu jaangooyay waxa uu dhigantaa lacag gaarayso 46 koror ee u dhigantaa filimkan Yuufa saaxiibada qiimaha badan waxa tigid goos oo shaleemad ka daawday sida diiwaan gashan dad gaaray 4,829,000 qof ee tigid goos oo shaleemad ka daawatay natiijada filimkan wuxuu noqday bilow average ayuu noqday wad kuma santiin saaxiibada qiimaha badan daawashada waxa halkaas inoo dhan barnaamijkan akhbaaradka aflaam turarka ugu dambeeyay hadeeta markay kugu horeeyso boqon channelka fadlan subscribe noo saar sidoo kale ilowin inaa muuqaal kale noo saarto aragtada comment noo reeb hadaa kamid saaxiibada hornool joogo muuqaalka share si saaxiib wanaagsan adoo kale channelka ugu soo biraan inta barnaamijkan ku kulmayno أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته